السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا صاحبة halka igu jira dhamaantood. In badan halkan waxba idinkumaan soo gudbin oo waa la kala mashquulay. Wuxuun baan maanta jeclaystay inaan muuqaal aad u kooban oo yar aan idinku soo gudbiyo. Haddii aad ka mid tahay dadka ka heli doona muuqaalkan markii daawadaan kadibna wax ka codsanaya inaad gudbiso oo gaarsiiso saaxiibadaada kale. inaad wax jeclaato ama aad qof aaminto ama aad ku kalsoonaato wax aad u qurux badan, laakiin inta badan markuu qofku wax jeclaado waxa jira khaladaad yaryar oo sameeyo kuwaas oo ah inay isku darsamaan dareemaha uu dareemayo qalbigiisu iyo waxyaabaha aanay ogoleyn maskaxdiisu inuu sameeyo, taasoo marka dambe ku sababta in marka xiriirkaasi dhamaado ama xataa isagoo xiriirkaasi socdaba qofku uu ka qoomameeyo samayntiisa iyo ku dhex jirkiisa intaba. markay arrintu taagan tahay inaad wax jeclaato oo aad qof aaminto, waxa muhiim ah in karaamadaada iyo shakhsiyadaada iyo qofnimadaada iyo qiyamka aad leedahay aanad ka tanaasulin. inaad wax jeclaato way qurux badan tahay, in lagu jeclaadana way ka sii qurux badan tahay, laakiin karaamadaada inaad ka tanaasusho oo waxa aad u farxo. markay arrinku taagan tahay sharaftaada, ku tuur dareenkaaga iyo qalbigaaga meel dheer, waayo haddii aad weydo sharaftaada waxaad u noolaan doontaa sida meydka. haddii qofka aad jeceshahay aad aragto adoo marmarka qaar uga tanaasulaya qiimaha ugu sarreeya ee naftaadu leedahay, sharafka ugu weyn ee naftaadu leedahay, عزة iyo karaamada aad leedahay oo shakhsiyan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuugu deeqay, waxaan kugula talinayaa inaadan ku talax tagin waxyaabaha aad sameynaysid ama aad dareemaysid. oo marka ay noqoto sharafta aad leedahay iyo karaamada aad leedahay iyo jacaylka aad dareemaysid, markasta waxa muhiimsan sharafta naftaada. sababtoo ah ma dhimanaysid haddii aad weydo qofka aad jeceshahay, laakiin waxaad u noolaan doontaa sida meydka haddii aad weydo sharaftaada. waad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.